heestaas sharciga islaamka wuxuu ka qabaa oo muusigada wadata sharciga islaamka waa manciyay fanka nooca u socda waqtigan hadda aan joogno wuxuu soo saaray bulshooyin baaba'ay bulshooyinkan hadda haweenka masaarida wada qaawan yihiin kuwa shaam way qaawan yihiin kuwa maghrib way qaawan yihiin kuwa jazaa'ir way qaawan yihiin haweenka inay iska qaateen dharka qaawan ma waa laga shaqeeyaa haweenka waxa weeye maxaan ku raadee waxa wacyigelin baa loo sameeyay fisqi iyo qurun ah heeso telefishinno haween qaawan يعني وحوي بالوسي ده مجتمعات بي أبورت مجتمعات كا واحد كو أبورتي تذكر لبا قيبود وي هذا إنها ببتا إنها هي ستا قاط بينها هي إن بعمرك قيلة سو وقت قاعد عم فديو مسايك كوجرتان يا ماركتي وهلن أما مركان سنة ده مفروض إنه بروح له أنتي صهر لنا هذين نعويس بينو طبينا وتذكر لبا قيبود نقدان قيب كوالن قاط عند iyo qayb ku waalan tumasho iyo cawiis oo iyaguna markaas waxay yiraahdaan aimadu markii ka hadlayeen heesto waxa weeye taxaliisha sinada iyo liwaadko dabada la iska foolo labadaas ay taxaliil u tahay oo daweysa farsamaysa mar alla marka cawiiska laga baxo ninka sanaag buu rabaa ninka ka sii darana dab uu raadinaya ama nina tamanaagaate nin dabadii ama naag dabadeed buu raadinaya liwaad buu raadinaya waa taxaliisha ama dawada ama farsamaynta sinada meel loo maro la waayay marka la isku tago meesha cawiiska oo dadkoo dhan isku dhaxtartay la raqsiyo oo maxaan ku raadayay raggii nimadu ka muuqatay naaga isu bedelaan oo naaga iyo rag la kala garan waayo oo waxay wada noqdaan maada labeeba oo qariban ay noqdaan markaas adduunka waa baabaya inagu maanta Soomaaliya hadaynu nahay maxaynu u baahanahay shacabku wuxuu u baahan yahay in biyo la siiyo in biyaha lacagta laga bixiyo ama laga khafiifiyo wuxuu u baahan yahay in tacliinta wax laga bixiyo hadaan laga wada bixinayn in laga khafiifiyo wuxuu u baahan yahay dadku caafimaadka in lacag laga qaadin dadku wuxuu u baahan yihiin biyo xidheeno wuxuu u baahan yihiin tacliinta iyo caafimaadka iyo biyaha iyo korontadan intaas u baahan yihiin weey in beera loo qodo in biyo xidhan loo sameeyo in dadka caafimaadkooda la ilaaliyo in bacaha laga goro bacaha dhulkii kharibay ma magaalada ku wareegto magaalada bacaha magaalada ayaa la wada yaabaysa qarna ku meersan oo tan ku meersan oo garow ku meersan oo meel kasta yaala bacaha laga goro waxay u baahan yihiin dadkani biyaha in laga baadho ay cabayaan cuntada in laga baadho in laga control baasha la yiraahdo dawada in ma aragtay meel alla meeshii ama warshadii ur leh oo sun lagu sameeyo in dadka laga fogeeyo dadku wuxuu baahan yahay loo shaqeeyo mujtamacan in la ilaaliyo u baahan yahay dadkana wuxuu u baahan yahay in laga ilaaliyo shiico in laga ilaaliyo dadka dibadda inaga imanaya oo wata gaalnimada oo ay sahyuuniyadu wadato oo dadka raba inay diintooda ka saaraan oo Soomaali u soo gurguuranaya oo afkaaga ku hadlaya oo amaray ducaatun ala abwaab jahannama in laga ilaaliyo u baahan yihiin dadkana wuxuu u baahan yahay shariicadooda in loo ilaaliyo oo loo ma aragtay maxaan ku lagu waxeeyo aad iyo aad waxaan u bogaadiyaa soo ma aragtay abwaankii ina Cabdullah Xasan abwaan buu ahaa soo ma aragtay abwaano badan baa jiray oo joogay oo gabaya inoo reebay oo wanaagsan oo badan yihiin على روح بقى كم إذا وحدوني هاي رهده إسماعيل مرة سو ما أركيسد سليمان عربي غمام يوها تري على هذا ما تري كره رجع صدوه وده جبيين جبيه في عم بكتجين جبيه عينه وكتجين وهي عيا وطورنا وهي في عنا وصوينا أو إلى أفضل نعم يسوون هير صروها ما أركتي تذكر معاصرين تا يم بقى كم إذا وعكم إذا معاه كور هذا على أفياره وعكم إذا إيش نكير قبيلي ما أبشر بعدله يا كمدها والرجل ما رتي سكون ودادة أهابو كمدها سو ما تم عدا كمدها الرجل نكار رادين يوي ونكاتو قبيه أتير العون يسو تذكر صورة كمد بياين وما دني وحبات مرة وحبة يعني
إلالية ومدني ما أنت عويس وما باهنا صومالي عويس وما باهنا صومالي وما باهنا هاي وحقبت دين تهذا لقو إلالية تدنيم هذا لقو إلالية أرنتاسي لحسيسه مركز دنبه الشرع له صومالي وأنا سيد إلهي أنبرينا سبحانه وتعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم. السلام.